bismillaahir rahmaanir rahiim habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka Daafur TV. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka ayaa shir uga qayb galay magaalada Ankara ee dalka Turkiga. Soomaaliya ayaa ka feejigan cudurka Ebola oo si weyn looga cabsi qabo inuu soo gaaray dalalka Uganda iyo Kenya. Dadka lagu arkay cudurka Ebola ee dalka Kenya ayaa sii kordhay. intaasi dhageystayaal waxay ahaayeen qodobadii wararkayaga ugu door corona haatan ku soo dhawaada warkii oo fidsan. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa shir uga qayb galay magaalada Ankara ee dalka Turkiga. dowladda Turkiga ayaa martigelisay xuska waxaana munaasabada furay wasiirka beeraha ee dalka Turkiga oo sheegay in ay muhiim tahay ka qayb qaadashada dib u dhireynta deegaanka iyo sidoo kale si looga baaqsado dhibaatada ka dhalata nabaad guurka deegaanka. munaasabada oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin badan oo ka kala socda daafaha caalamka ayaa waxa goobjoog ka ahaa Ibrahim Tiow of Mauritania oo ah xogayaha fulinta ahdiga qaramada midoobay ee la dagaalanka saxaroobida deegaanka ee la yiraahdo UNCCD. ahdiga qaramada midoobay ee la dagaalanka saxaroobida dhulka oo la sameeyay sanadkii 1984 waa 94 ayaa dhammaan dhinacyada waajib uga dhigaya in ay u hogaansanaadaan heshiisyada la xiriira deegaanka iyo sidoo kale horumarinta xasilinta maamulka dhulka. maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka saxaroobida dhulka iyo abaaraha ayaa waxaa la isku xasuusiyaa dhibaatooyinka ka dhasha saxaroobida waxyaabaha keena in dhulku uu saxaro noqdo iyo sidoo kale qorshayaasha looga hortagayo halku dhiga sanadkan ee xuska munaasabada 17 Juun ayaana laga dhigay aan mustaqbalka u horumarino si wada jira. khudbadu Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka Soomaaliya uu ka jeediyay munaasabada xuska ayuu ku sheegay dhibaatada ay dalka iyo dadka Soomaaliyeed ay ku qabaan deegaanada saxaroobaya iyo sidoo kale qorshaha dawladda ee looga hortagayo saameynta isbedelka cimilada abaaraha iyo dhammaan waxyaabaha sababa in dhulku uu saxaroobo oo wax soo saarku markaasi uu hoos u dhaco. saxaroobida deegaanka xaalufinta iyo sidoo kale abaaraha ayaa qayb ka qaata ka sii daridda dhibaatooyinka dhaqaalaha bulshada iyo deegaanka ay ka mid yihiin faqriga barakaca bulshada caafimaad darrada yaraanta amniga cudurrada yaraanta biyaha iyo sidoo kale u nuglaanta saameynta isbedelka cimilada. shirkan ayaana lagu qabtay magaalada Ankara ee dalka Turkiga waxaana dowladda Soomaaliya uga qayb galay Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Khadar isagoona sidoo kale ka warbixiyay dhibaatooyinka ay ku keento xaalufinta dhirta dalka iyo dadka Soomaaliya. dhanka kale Soomaaliya ayaa ka feejigan in uu soo gaaro cudurka Ebola oo si weyn markaasi looga cabsi qabo in uu soo gaaray dalalka Uganda iyo sidoo kale Kenya oo maalmihii ugu dambeysay laga cabsi qabay in dalalkaasi uu ku soo baahay cudurkani. wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in aanu jirin walaac ku saabsan in cudurka Ebola uu soo gaaray Soomaaliya kadib markii maalmihii la soo dhaafay laga helay dalalka Uganda iyo Kenya. wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada iyadoo ka jawaab celinaysa dareenka bulshada Soomaaliyeed ee ku aadan xanuunka Ebola ee laga helay wadanka Uganda waxa ay wasaaradda soo saartay warbixintan ku saabsan wasaaradda caafimaadka waxa ay cadeynaysaa in howl maalmeedka wasaaradda ay ka mid tahay u diyaar garowga musiibooyinka dabiiciga ah iyo kuwa aan dabiiciga ahayn oo ay ka mid yihiin cudur dilaaca sida xanuunka Ebola. waxayna had iyo jeeraale juhdi ku bixinaysaa ka hortagga xanuunada waxyeelada u geysan kara badqabka bulshada Soomaaliyeed. wasaaradda waxay indhaha ku haysaa isla markaana si dhow ula socotaa xaaladda xanuunka Ebola ee laga soo wariyo dhammaan wadamada Afrika ee uu saameeyay xanuunka Ebola kuwaas oo ugu dambeeyay wadanka Uganda. ayadoo arrinkan mar walba la kaashanaysa dhammaan hay'adaha ay khusayso sida hay'adda caafimaadka adduunka WHO, hay'adda IOM
iyo cid allaale ciddii kala shaqeysa caafimaadka waddankeena. hay-adda caafimaadka adduunka guddigeeda xaaladaha degdegta ah ee cudurdilaaca Ebola loo yaqaano WHO IHR Emergency Committee for Ebola waxa uu ku soo saaray arrin xanuunka Ebola ee dalalka Congo iyo Uganda warmurtiyeed taariikhda marka ay ahayd 14 June 2019. warmurtiyeedka waxa uu cadeynayaa in cudurdilaaca xanuunka Ebola ee hadda ka jira wadamadaas uusan gaarsiisnayn heer cudurdilaac caalami ah oo keenaya in laga walwalo caafimaadka dadweynaha. dalka Kenya ayaa sidoo kale mas'uuliyiintu ay sheegeen in ay baarayaan dhowr qof oo looga arkay calaamado u eg kuwa Ebola hase yeeshee mas'uuliyiinta caafimaadku weli ma aysan xaqiijin. dadkaas ayaa si gooni ah loogu karantiilay kadib markii looga shakiyay inay la xanuunsan yihiin calaamadaha cudurka waayadana dambe ku baahaya qaaradda Afrika ee Ebola. waxaana saddexdan qof lagu hayaa isbitaalka Kericho ee magaalo madaxda ismaamulka Kericho ee dalka Kenya. wasiir ku-xigeenka caafimaadka Soomaaliya Maxamed Saciid Cabdullaahi ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale shacabka Soomaaliyeed ay waajib ku tahay inay ka foojignaadaan cudurkaas isla markaana wadamada Soomaaliya ay xiriir kala leedahay ay kala hadleen arrinta cudurkaani. isagoo u waramayay Daafur TV ayuu sheegay in ay xilligan aysan jirin khatar ku saabsan cudurka Ebola oo Soomaaliya looga cabsanayo hase yeeshee feejignaanta iyo dadaalka uu socdo. weli saaxiibayaal waxaad la socotaan warka Daafur TV ee magaalada Muqdisho si toos ah markaasi aad uga dhageysanaysaan. ilaa 3 ruux ayaa si gooni ah loogu karantiilay kadib markii dalkaasi looga shakiyay inay la xanuunsan yihiin calaamadaha cudurka waayadan dambe ku baahaya qaaradda Afrika ee Ebola. waxaana 3 qof lagu hayaa isbitaalka magaalo madaxda ismaamulka Kericho ee dalka Kenya. sayga qofka dumarka ah ee lagu arkay calaamadaha cudurka iyo sidoo kale 2 qof oo kale ayaa habeenkii Axad la gaarsiiyay isbitaalka. Dr. Shadek Mutai oo ah madaxa qaybta caafimaadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in ay qaadeen tillaabooyinka ay uga hortagi karaan calaamadaha loo mareynayo in ay yihiin kuwa cudurka Ebola. deegaanada laga soo sheegayo in lagu arkay cudurka Ebola ee Kenya ayaa xuduud dhow la leh dalka Uganda oo maalmihii la soo dhaafay dhowr qof ay u geeriyoodeen cudurka Ebola. waxaana laga cabsi qabaa in tirada dhimashada cudurkaasi uu sababay ay sii kororto dalka Uganda. hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa khubaro dhanka caafimaadka u dirtay ismaamulka Kericho ee dalka Kenya si ay baaritaano dheeraad ah ugu soo sameeyaan 3 ruux ee sida looga shakisan yahay in ay qabaan calaamadaha cudurka Ebola. sidoo kale qaybta adeega baaritaanka daawooyinka ee dowladda Kenya oo iyaguna tijaabo ka qaaday dhiigaga dadkan ayaa la filayaa inay jawaabtooda ay soo saaraan saacadaha soo aadan. maalintii Axadda ayay ahayd markii isbitaalka Siloam loola cararay qof haweeney ah oo ka soo safartay magaalada Malaba ee ismaamulka Busia ee dhanka bari ee xuduudda Kenya iyo Uganda taasoo markii dambe loo soo wareejiyay isbitaalka magaalada Kericho. warkii Daafur TV ee magaalada Muqdisho waa naga inta cid warku sheego waxay dib uga daalacan karaan barta internetka ee ku leenahay ee daafurtv.net. idinna waad ku mahadsantihiin saaxiibayaal la socodka iyo la jaanqaadka warkayaga.